qolo kale waxaa noo timi sidii ku oo iyadana ku dhahaysa kiya fariin hal dhinac ka socota fariin hal dhinac ka socota dalkan lagu dhisi karo mana anfacayso saas darteed waxaan rabnaa in la doodo oo annaga xisbi wada jir waxaan rabnaa in waxa lagu dhisayo Soomaaliya ay dood noqoto waxa ku nagu jira aan soo bandhigno nagala doodaan wixii qashin nala daadiyo wixii wanaagan oo ku taageero wixii kordhi karan oo ku kordhiyo wixii nala dhimi karo nala dhimo dadku caqli leeyihiin garaaday leeyihiin aragti leeyihiin marka rag gudooga kamida yaa waxay noo soo jeediyeen garoonka Cabdullaahi Ciise waxay dhaheen dadku kula hadla marka annaga waxaan niri groupkaas ma nihin annaga waxaan nahay group dadka inay la doodaan raba group hal dhinac fariintooda tahay annaga ma nihin aan ka cudur daaran waxaana mawduucan oo gudoweyn inaan dhex galno kaalkacyana ay u tahay center sida gudoomiye Kamaal uu sheegay runtii Soomaaliya waxay soo martay tijaabooyin badan ay ku doonayso inay dowladnimo ku dhisato tijaabadii ugu horeysay 9 sano ay jirtay waa nidaamkii dimuqraadiga ahaa oo dalku xisbi ay ka jireen dadku ay isdooranayeen dalku baarlamaan uu lahaa lagu soo tartan iyo baratan kaalkacay dabcan meelaha asalku ah oo siyaasaddaas loolankeeda mid ahayd waa socotiin labadeeda dhinacba marka nidaamkaas jiray shaqaalaha rayidku waxay ahayn kuwa ka madax bannaan siyaasadda ciidanku wuxuu ahaa siyaasadda mid ka madax bannaan oonan amar toos uga qaadanayn madaxda oon ka wada dhahayn hebel soo qabta ama hebel soo xira ama hebel siyaasaddu iga soo jeedahay ka qabta aysan ahayn waxaa jirto qiso caan ah oo buugaagta qoraalada lagu wariyey oo ah nin ka tirsan safaaradda Soomaaliya Addis Ababa markaas joogay yaa dukumiintii wuxuu u liigareeyay ama u dhiibay oo sirta dawladda ah joornaal madax bannaan oo dalka la dhihi jiray oo xilliga soo baxa joornaalkaas hadda cadadii soo bixi jiray xilligaas oo dhan in dhuxul la yiraahdo editorka reer Hargeysa aad u qiimo badnaa dawladdu critic ku ahaa dadka dawladda aad u dhaliilo ahaa ilaa hadda jaamacadaha adduunka iyo makaatibta waa yaalaa nuquladii joornaalkaas marka ninkii waa la qabsay Cabdisaaq Xaaji Xuseen oo wasaaraha marka wuxuu isku dayay ninkii in la qabto oo ninkii xilkii laga qaado shaqada laga raacdeeyo maxkamadda maamulka uu tagay maxkamadda maamulka jirta dalka oo abiil loo qaato wuxuu yiri xukuumaddu waxay ugu raacisay la yiraahdo unfair dismissal si oon cadaalad ahayn xilka laga qaaday maxkamaddii waxay xukuntay wasaaraha inuu qaldan yahay ninkaasna uu saxsan yahay shaqadiisa loo soo celiyo macnaheedu waxaan ka wada way ka madax bannaayeen hay'adaha maamulka kuwa siyaasadda way ka madax bannaayeen hannaankaas annagoo ku jirna ciidanka yimid waxay afgambiyeen nidaamkii dimuqraadiga ah waxayna ku sheegeen inuu ahaa nidaamkii musuqmaasuqa intana kalena way naga raadeen nidaamkan oo musuqmaasuqa inuu ahaa dabcan musuqmaasuq waa jir curdun oo ahaa nidaamku laakiin nidaamadu hana qaado sida Afrikada qaarkeed maanta gaari kara ayuu ahaa oo dawladdaas dalkeena oo Kenya ay u horeyso xukunkii la wareegay asagoo ah dhahay qaran xoog badan aan dhisayaa waxaan dhisayaa dawlad adag waxaan dhisayaa horumar waxaan keenayaa talo Soomaali ay ku barato sharaf iyo karaamo adduunka ay ugu soo ceshato laakiin halkuu ku dhamaaday mar raba taariikhdiisa galo waa la soconaa meeshuu ku dhamaaday wuxuu ku dhamaaday dagaal ahliya dadkii oo isdilaya dawladdii oo dadkii u haystaan inay tahay mid shakhsi ah anaga keliyana maana wadamo badan oo noocaas hadda adduunka way ka jiraan oo hadda kuwa hadda 90kii meeshaan jooga anaga jooga hadda oo sidii u dunaya dawladdii hadda qofkii Libiyaanka markaa warsato wuxuu ku leeyahay Qadaafi iyaan anaga la dirsanayn dawladdii Qadaafi iska dhex galay ay kala qowaayeen marka waa isla dumiyeen daawarsato Siiriyaanka Asad iyo wiilkiisa iyo reer Asadi waxa iska dhex galay dawladnimadii way iska dumiyeen saas oo kale Yemen saas oo kale maanta dawlado badan oo nooca hadda waxa jir jidkaas ku socda oo la kala garaway qofkii wax xukumayay iyo dawladnimadii la kala garaway marka annaga waxaan rabnaa systemka marka dimuqraadiga oo ka horeeyay military alaxas ma ahayn aadan cadde iyo systemka waa la kala garay Cabdirashiid iyo dawladana labay kala haayeen oo way kala baxsanaayeen marka tijaabadii labaadna taas ay sidoo boorka u dhacay tijaabadii saddexaad waa midii carta laga keenay oo lagu soo dhisay dawladdii ku meelgaarka ahayd oo 4.5 ku dhisneed oo nidaamka federaalka ah ku qtantay hanaankii dimuqraadiga in dib loo soo celiyeen ku
ku dhisneed ayuu ahaa ilaa hadda waxay jirtaa dhowr iyo 10 sano 20kii ku dhowdahay si tartiib ku socotaa way hana qaadi laadahay laakiin sidaas tartiibka ah oo maalinba wax lagu dayo yaa waxay ka habboon tahay in xoog qof wax ku qato oo yiraahdo aniga qarankii ah anaa qan fiican oo xoog inay dhisaya anaa dawladnimo adag inay haya aniga karaamadii iyo sharaftii Soomaaliya soo celinaya ee xukunka aniga gacanta la geliyo taas Soomaalida way ku soo jarantay way ku soo qaldantay mar dambana uma socoto xagee la aaday marka waxaa la aaday nidaamkan ka soo dhiska ah oo si kala hadii loo dhigo la yiraahdo federaalka la yiraahdo oo hadda ka dhisan galmudug oo imaan doona sida galmudug iyo dhismaheeda yahay sida inay tahay loo dhiso oo hadda ka dhisan Puntland oo ka dhisan gobolada intooda kale deegaanada kale Jubbaland iyo South West ay kamid yihiin marka laga tago Somaliland inta kale mul goboleedyo ayaa ka dhisan oo gunka soo dhis ku socda oo haddii maanta caasimadda ay dhibaato gaarto loo baxsan karo oo maanta halkaan aan joogno kaalkacyo on servicekii iyo wixii loo baahnaa qofka muwaadinka ee reer galmudug oo ku haysta halkaan laakiin awal saas ahaa jirin waa la socotaan wax yar oo service u baahato waxay ahayd in caasimadda aado hadda shahaadada secondary u baahan tahay anigu shahaadada dugsiga u baahday waxay inaan xamar tago haddii aan baasaboor u baahnayna xamar tago haddii aan wax kasta oo dawladda ku xiriir haddaan u baahdo waxay ahayd inaan tago magaalada Muqdisho oon u safro oon xagga u doonto laakiin hadda dadkii inay noloshooda ayaga dhisanayaan ayaa muuqda maxaa marka dhigi karnaa caqabadaha na hortaagan maxay yihiin oo hadda inay hanaqaadkan nidaamkii saddexaad ama jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya inta ka soo bilaabatay ilaa Eldoret soo martay ilaa Djibouti qoladii aniga aan qata ka ahaa soo martay ilaa gudaha la isku doortay ilaa nidaamka federaalka hadda aan joogno maxaa caqabado ku ah maxay fursado ah labadaas arab inaan yara kor istaagno ka bacdina arinta galmudug aan ku soo gabagabayno waxaa caqabado ah qabiilka qabyaalada qofka u yaqaan dadka qaar waa soo midba dadka qaarna way kala saaraan dabcan qabiilka waa dadku waxay ka soo jeedaan iyo isirkooda iyo farcooda wadaad baa inin doodayaan maalin dhageysto wadaadka marka wuxuu soo daliishaday aayadii quraanka ahayd wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri in qabaa'isha iyo waxa loogu talagalay in la isku aqoonsado wajalnaakum shucuuban wa qabaa'il latacaarafu nin dood adag oo ku yiri in la isku ogaado Soomaaliya ha aydiyan wataa u dhahay maxaa u baahanahay tacaaruf waa la yaqaanaa sheekhu wuxuu yiri wax kale keen waxa barasho yihiin aydiyan wataa u dhahay aniga jaabka igu jira lagu garanayo lagu aqoonsan fingerprint hadda jiro dhahay fara DNA yaalo mar maxaa looga baahan yahay dhahay in la isku aqoonsado marka doodaasna waa jirta ogaada laakiin haddii aan ka sii gudubno dhano qabiilkii qabyaaladda aan kala saarno anigu waxaan ku miisaaliyaa qabiilka sidii maaragtay biyaha iyo doontu kale si isku yihiin doonta ama bada ku socoto ama webiha ku socoto biilaan ma socon karto Soomaa waa inay biyo u kor socotaa hadday biyaha soo galaan way qalibayaan Soomaa waa dhibaato ku tahay ma kamana maaranto hadday soo galaanna way duminaysaa marka hadda qabiilka nidaamkeena dawliga ah in lagu dhiso waa lagu qasban yahay sababtoo xal kale hadda oo lahaayo ma jiro saareen ahayd qoladii tiri xalan raadinaynaa xaq ma raadinayno wax ku istay haddii aan ka soo qaadno laakiin haddii uu doonta soo galo biyaha uu qarqinaya marka in la ilaaliyo u baahan tahay oo lagu socdo kaliya lagana ilaaliyo inuu biyaha doonta soo dhex galo marka qabiil marka muxuu caqabad ku yahay dadka siyaasiyiinta ah ee siyaasad ku loolamaya ayaa u adeegsanaya qabiilka inuu yahay aaliyad ama qaab ay ku manabalood gareeyaan ama ay maskaxda uga qabsadaan dadka shacabka ah ayagoo waxba u soo celinaynin adduunka waa jiri jirta marka taariikh ahaan laakiin dadku ka gudbaan ummadaha dhan adduunka waa soo wada mareen yuruba waxaa la yidhahdaa ummadda si fiican uga dhex baxda qabiilka oo ka tagtay nebigiisba laakiin qolo aan soo marin jirto hadda Shiinaha wali qabiil waa qabaan laakiin sidan oo kale maaha carabahan afrikaanka xataa hindida kastisay way qabaan laakiin sidan oo kale gaarsiisan annaga waan ka guuri laanahay si tartiib uga guureen ummadaha kale laakiin dadka completely ka guuray gabi ahaanba waa Yurubanka dadkana waxay dhahaan wax ka raray diinta masiixiga yaa ka ratay laakiin annaga waa ka guuri laanahay sidii aan xawlo abuuraan balkii ag yurarnaa oo waa dhaqaaqi laanahay
qabiilkii waxa loo yahay maxbuus wax lagu helayna ma laha marka fiirsa marka taariikhda carabta uu ku waday jaahiliga ahaa waatay leeyihiin axyaanan calaa bakri min akhiina il najid ilaa akhaana haydan mararka qaarkood dagaalka reer bakar oo walaalaheena nagala dhexeeya wax la dagaal haddaan weyno ayagaas dagaalayna hay dhaheen marka waa saasa marka wuxuu yidhi inamaa ana min qusayata in qawad qawiitu dhahay aniga reer qusaya ka tirsanahay hadday baadiyowdo waa la baadiyooba waa meesha annaga aan ka dhahno fiqi tolkiis kama na tago marka nimankaas waxay ahaayeen niman silac ku nool oo qabiilka aaminsan markuu faanaa nin caraba wuxuu yidhi idaa balaqa alfitaamu sabiil mina alfitaamu takhiru lahu jabaabir saajidiin oo dhahay haddii annaga wiilkeena yarkaa markii naaska laga gooyo kuwa jabaabiryadaha oo qabiilada weyna u sujuudo dhahay markay arkaan wanashrabu maa in waradnaa safwan wayashrabu kayrunaa kadran wadiina oo dhahay ceelka markaan cabayne biyaha miidda cabnaa oo dhahay iyadoo la taabanin marka annaga cabnay waxa calowga ahay wadaanta qasta kuwa kala cabaanoo yidhi marka dee waa jaahiliya wax loo yidhi waa qofka qabiilka la weyn wuxuu ku qabo nacfiyana male marka qabiilka gudbayay oo ummadaha kale ay hadda ka soo mareen dadka ayagoo isku kasti ah ama isku qabiil ah ay masaalix ka wada hadlaan warniyo maxaa dano u ihaysaa oo anigu soo kordhinaysaa ma ihaysaa horumar caafimaad waxbarasho nolosha wax ka bedelaya xoogaa isla xisaabtana isku qabiilana ruu waaya aniga laakiin qabiilkii wax ku dar taas weli anaga ma gaarin see uga baxayna waa meesha fursadaha aan ugu imaan doono duu la yidhaahdo qodobka labaad waxaa waaye wax la yidhaahdo siyaasadda sibraar dhaansiga siyaasadda sibraarka ma taqaaniin baasha caloosha la buuxinaayo siyaasaddii dalkeenna waxay noqotay calooshayda aan buuxsado maxaa igu jiro ku leeyahay maxaa ka helaa maxaa ka samaynaa maxaa iga soo gelaa niyow maxaa ii haysaa maxaa kaa faa'iidaa ayadana intaasay ku dhisan tahay marka waa siyaasadda caloosha la dhaaminayo taasna waa caqabadaha ugu waaweyn ee siyaasadda Soomaaliya haysta oo u baahan in lala dagaalamo siyaasad maxay ahaan jirtay siyaasadda waxay ahaan jirtay afkaar waxay ahaan jirtay fikir aragti wax la isku khilaafsan yahay la isku diidan yahay ujeedooyin mabaadi adduunka waxaa maqlaysaa fikirka waxaa jira markii hore oo dagaalka adduunka uu ku dhisnaa dagaalkii qabow adduunka ku dhisnaa fikirka shuuciga iyo midka maaragtay raasamaaliga ku dhisnaa sooma ahayn oo madax ka nool oo kapitaaliska la yiraahdo iyo kan maaragtay shuuciga ku dhisnaa communiste iyo waxaa jira maaragtay nidaamkan halka dimuqraadiga oo galbeedka ay keeneen waxaa jira bidixda waxaa jira midigta waxaa jira adduunka dadku afkaar isku hayaan iyo aragti laakiin Soomaaliya waxaas oo dhan ka jiraan waxa ka jiro maxaa aniga maanta calooshay galay ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama qof madax ha ahaado qofku wuxuu ku xisaabtamayaa maxaa aniga aan meeshan aan ka helayo dan ugu jira calculation-ka markuu xildhibaanada doonayo wuxuu ka bilaabayaa doorashada madaxweynaha mooshinada baarlamaanka intay la egyihiin waxa uu ka faa'iidayo waxa uu ka helayo haddii mooshin la keeno ka faa'iidaya dadkii dhammaan saas ay ku salaysan yihiinba oo waxay sal u noqotay waa cudur waa disease waa fitna wuxuu nabiga calayhi salaam oo dadku dhabahay oo aniyo maxaa dan iigu jira oo qiyamkii akhlaaqdii dhamaa ay lunday hadda sheekh qaaga akhrinay Allah khayrtiye wuxuu ku bilaabay in Ibrahim wuxuu yiri kaana umma Ibrahim wuxuu ahay nation qaran oo Ibrahim kaligiis ma ku noqday wuxuu taagan yahay waa firkiisa waa mabdiisa waa aragtidiisa wuxuu ummad ku noqonay ilaahay leeyahay ummadu ku ahaa ma ahayn dhaqaale oo haysto inta hanti oo li karo waxa uu jeebkiis ku jira xoolaha oo ilmahoos inta leeyin ma ahayn markuu ilaahay leeyahay umma waa kaligiisa ummad taaganaha waa waxa idealist wax la yiraahdo waxa uu taagnaa oo fikir iyo aragti ah waxa kale oo caqabadaha waxa kamid Soomaaliya meesha ku taalo oo adduunku isku hayo waa dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay arkaan intaas oo maanta dhan beesha caalamka maqlaysa raqaal soo saaray 50 dawlad ay ku taalo maalin kasta fiira keenay warqadiisa ciidamada joogo kuwaas ay meeshan kula meel ka degan yihiin bad iyo been naga degan yihiin waxa keenaya Soomaaliya waxay tahay meel muhiim ah ku taalo adduunka marka meel ma aha la iska dhaaf karo
caqabadahana waa ka mid tahay fursadahana waa ku jirtaa oo qof kasta wuxuu rabaa dantiisa inuu Soomaaliya ka helo marka waanu ku loolamayaa dariska bilow ilaa ku xiji dawladaha ku xiga dariska oo bariga dhexe ah ku sii xiji kuwa weynaaye adduunka waanu ku loolamayaa waana la wada joogaa dadkuna dan basay raasanaya annaga taas ma baadhi karnaa waa caqabadaha nagu hareeraysan oo dhismaha dawladnimada iyo nabadda Soomaaliya yay qayb ka tahay had fursadna waa noqon kartaa caqabadaha kale waxaa ka mid ah fahamka diintii qaldamay waa mid ka mid oo ugu muhiimsan waa weliba oo nimanka hadda dhalinyarada soo saaray oo dadka xasuuqa dadka laynaya ee dadka gumaadaya ee kale dalkan islaamka iskale qof kastoo muslim waa u furan yahay waan lagu martiqaadaya adiga iyo Abu Hebel oo u simantihiin meeshaan